السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan nagala socota waa Ansax TV. waxaan barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa inaan ka hadalno awoodda ciidanka iyo hubka ay leedahay Kuuriyada Waqooyi. sida uu ogtiin badawada Kuuriyada Waqooyi waxa haysta madaxweynaha Idaadiisu ay yar tahay isagoo horumar fadlan ka sameeyay dhanka ciidanka iyo hubka. waxa aan oranayna sanadadii ugu dambeeyay Kuuriyada Waqooyi waxa ay ku talaabsatay horumar dhinaca hubka ah iyadoo oo tijaabin jirtay wiil kasta hubabka cirka ama lidka diyaaradaha waaweyn iyo gantaalada iyo madaxyada gantaalada hubka lagu qaado. waxa sidoo arkaysa madaxweynaha haysta oo madaxweynaha Idaadiisu yar tahay waxa uu horumar fadlan ka sameeyay dhinaca la jaanqaadka awoodda military iyo hubka adduunka. sida uu ogtiin waxa ay ficiltan dhinaca hubka iyo saanida military ay kala dhaxaysaa wadamada Mareykanka iyo Russia. daawadayaal waxa uu kala sameeyay inuu horumar ka sameeyo dhinaca maraakiibta dagaalka isagoo oo maraakiib dhowr 25 maraakiib in ku dhow ay sameeyeen intuu haysta madaxweynahaasi daada yar leh isagoo kala soo wareegay adeerkii. waxa kale oo saxaafadda caalamku ay ku daacadeysay inuu dilay walaalkii oo ahaa ninkii dhaxalka ka lahaa shaqada madaxweynenimo isagoo u dileen si casri ah. laakiin ma jirto cid ku soo eedeyn karaysa waqti xaadirkan inuu dilay ka dambeeyay dilka walaalkii. waxa kale oo madaxweynayaasha kale u dheeryahay inuu kala qayb qaato ciidankiisa sameynta hubabka iyo fikradaha cusub ee dhinaca haddii ay tahay lidadka diyaaradaha iyo maraakiibta. waxa kale oo madaxweynuhu uu markasta waqtigiisa inta ugu badan kula qaata ciidanka isagoo oo ka caawiya dhammaan wixii ay ka cabanayaan duruufo ah. fadlan subscribe kadibna share garee riix gambaleelka si aad u daawato dhammaan fiidiyoyada cusub ee soo gelinay. waxaan idin tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.